kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamijkii madasha qurba jooga oo caadiin idinka yimaada studio-ga telefishinka qaranka Soomaaliland ku leeyahay magaalada London. barnaamijkan madasha qurba jooga oo aan ku soo qaadano waxyaabaha la xiriira arrimaha Soomaaliland iyo guud ahaan waxyaabaha ay xiiseeyaan dadka daawada telefishinka qaranka Soomaaliland. waxaan ku soo qaadanaa waraysiyo doodo iyo hadba waxyaabaha aan isleenahay waa ay taagan yihiin. toddobaadkan iyo barnaamijka madasha qurba jooga waxa ay farxada in studio ku sugan yahay oo waraysi kala yeelan doono arrimaha la xiriira deegaanka uu ka soo jeedo waa oday Maxamed Awil Ali oo kana tirsan ururka Xaqsoor golihiisa dhexe. Maxamed waxa uu deganaanshahan ku nool yahay dalka Britain hase ahaatee waa qof aad ugu dhoon daboola arrimaha siyaasadeed ee guud ahaan Geeska Afrika. waxaan waqti aan fogeyn uu booqasho ku tagay Somaliland siba caasimada ee Hargeysa. sidoo kalena waxa uu si aad ula socda xaaladda deegaanka ku soo jeedo oo ah Buuhoodle. Maxamed markuu ugu horeysa barnaamijka madasha qurba jooga ayaa si weyn kugu soo dhaweynaya ku soo dhaw barnaamijka. waad mahadsantihiin Cabdillah. in kastoo ay ahayn markii ugu horeysay barnaamijka madasha qurba jooga ka soo baxdo aad horana adigoo xusbigiina matalaya aad ka qayb qaadatay dood aan halkan ku qabanay oo la xiriiray ururada iyo xusbiyada. bal sida la socoto waxa tahay odayada ku dhaqan waliba siyaasiyiintana ah ku xiran deegaanka ay ka yimaadeen ama ka soo jeedaan siba deegaanka Buuhoodle. nabadda Buuhoodle ka bilaabatay sida weyn loogu saacabinayo sidii ay u socotaa markaas idinku muuqatay intiina qurba joogta. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa telefishinka qaranka Soomaaliland oo qurba joogta siiya fursad ay ku cabiraan oo kaga hadlaan ra'yigooda marba wixii qadiyada ka taagan dalkii. marka aan soo laabto su'aashaada Cabdillah waxa weeye waad ogeedo meeshan la yiraahdo Buuhoodle waxa ka dhacday mashaqo dagaal baa ka dhacay khasaara yimi. waxa aan marka ugu horeysa ugu mahad celinaya oo mahad u naqaya dadkii dhinac kasta ka soo jeedeen labada dhinacba ka soo jeeda dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca Buuhoodleba iyagoo reer Buuhoodle ay yihiin Soomaaliland ee nabadda isu xilqaamay sidaad ka warqabto. ninka la yiraahdo Xagla Toosiye wuxuu yimi Soomaaliland aad baana loogu soo dhaweeyay mas'uuliyiintii reer Soomaaliland ee xukuumadda maanta talada gacanta ku haysa way wada hadleen. wixii uu ka dalbaday waa loo ajiibay waa laga aqbalay. maxaabiistii baa la sii daayay ciidankii baa la soo qaaday. waa tallaabooyin aad iyo aad u qurux badan. isagana kolley dee waxaa laga codsaday in uu nabadda dhinacii kale ka soo abaabulo oo ka soo shaqeeyo. marka aniga oo dareensan Xagla Toosiye tallaabada geesinimada uu qaaday oo isagoo shalayto xagga ka soo jeeday oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee dagaalka bilaaba maanta haddana isagii nabad qaatay oo tallaabo geesinimo ah ku kacay. haddana waan dareemi karaa duruufta ku xaydaansan ama duruufta ku yaani dhibaatooyinka ku wareeg ku gadaaman waan dareemi karaa. ma inta yaraan dhameystiro marka wuxuu u noqday si aanay nabadgeliyadii u noqonin dhicis si aanay nabadgeliyadii dhicis u noqonin in uu beeshii uu ka soo jeeday tala kula noqdo iskama fadhiisan Hargeysa. markiiba uu ka noqday wuxuuna u noqday inuu beeshiisii tala kula noqdo si nabadii uu dhinacaana uga soo bislayo. marka bisaylkii ayuu ilaa iyo hadda ku naqan yahay. waxaanu ka rajaynaynaa in isaga oo soo bisleeyay oo wax bisil oo cuntami kara uu keeno. waxaad su'aashu ahayd nabadda Buuhoodle sidee u socotaa. waxaad sheegtay in siyaasiga Xagla Toosiye uu leeyahay mudnaanta in carabka lagu dhufto cidda ka shaqaysay. su'aashu waxay noqonaysaa kaalinta xiriirka siyaasadeed ay ku leeyihiin
xubnaha ka soo jeeda buuhoodle iyo gobolka sool laascaanood oo kale ee Somaliland hore ugu jiray iyaga kaalintoodii ma waxaad leedahay waxa ka mudnaatay nin kaliya oo xaggeed ka soo jeeday ama bulshada inteeda kalaba waxay la tahay Cabdullaahi dhibaatada jirta dadku runta way necab yihiin أنا سيدا شاكتي أودي قربها إسكجر حاجة وهذه الشير شعل إنه فنت شاقو أيان إسقبضنا حي وحا أنقبا سياسيين تا أما سولها كسو تشيدي أما سناكا كسو تشيدي أما بوهود لها كسو تشيدي سياسيين تا باشا bariga lagu sheego ee ku jirtay Soomaaliland anigu waxaan oran karaa gaabka Soomaali yani is afkaranshawaga iyo kala duruga Soomaaliland iyo beesha ku kala dhaxdhaxay inay iyagu door weyn ku leeyihiin maxaa ku salaysan waxa aan ku saleeyay muddo dheer bay joogeen Soomaaliland ما أي كشري الماملكة أولي دي أي حلال إلا هير وسير إلا قدومية كحية عن دائما نصيبية كما يعني درجوين كلا قد سنة هايستين منك هرقيسي جوغا إباشا كسو جيدا أنقول جيسي تيجي كراينين أما غير كيسي تيجي كراينين أما غير كيسي كيني كراينين أما أتليس وبيران مركات سرطة عقل كيسي أما قرات كيسي أنكي إلا يهد هرقيسي كيني واي وحان أنو أركا إن آنو ربين إن أي ماشا نبتقليو كدحضو مركا كقدبك أي كقدبتي Somaliland ماملكي Somaliland قولنا إلي وحويدي صوت توس أولا حريدي dadkii wax tabanayay oo ay toos isu qaabileen waxaan u arkaa oo ku amaanaya maamulka hadda jira in uu ogaaday halka ay ciladu ka jirtay marka arrinkani waxa leedahay nimanka odayaasha xilalka kala duwan qabtay isla deegaanka ka soo jeeday aanu garan karno xusbiyada bada idinka horeeyintina ururada cusub hore ugu kala jiray waxa leedahay iyagu kaalintoodii bay gabista ay gabeen ba xaaladu la dheeraatay buuhoodla iyo in colaadu u ogbaan ma oran karo mali xaalad kaalintoodii bay gabeen macnu ma macnuhu waxa weeye ma rabaan in Somaliland iyo beelaha barigu ay wada hadlaan oo iyagu inay u tujan because waxa igu maqaalo oo lagu soo qoray ama jaraa'idka lagu soo qoray inay madaxweynaha qaarkood la garnaqsadeen oo sidee aad noola socodsiin weyday arinta markii xag la toosiyay la invite loo yeeray oo ay ka xanaaqeen maxaaba hadiiba uu u yimi min dagaal oo ku ooga aha oo uu hubkii dhigay oo yiri nabad baan wadaa maxaa ku kalifay iyagu inay ka xanaaqaan taawli maynaan aragode iyaga lafantoodu malaha ma dawad sida lagu soo qoray ku qornayd meel walba jaraa'idkii meel walba lagu soo qoray in ilaa madaxweynaha loo tagay oo leeydi isla markaa arintu iyaga u xidhnayd imka baarlamaanka maanta jira ee Somaliland la tusay 6 sano jiray ilaa 6 sano sanadkii toddobaad baa loo socdaan mareelay waa ilaa 2015 buu jiray intaaba mas'uuliin beelaha ka soo jeeda ku jirtay guurtida hadday guurtida tahay hadday baarlamaanka tahay intaba waa ku jira laakiin la oran karo in idinka lafahantiina inta aqoon-yahanadiina dibadda jooga iyo siyaasiyiinta ayaga laftoodu lugta hayeen in wax dhaqaaqaan oon lagu eedayn karin nimankan aad imika carabka ku dhufatay ee iyagu horaba ugu jiray maamulka Somaliland darajadiisa kala duwan marka xaqiiqada loo soo noqday Cabdullaahi beesha anigu aan ka soo jeedo meel kasta ha degto wax kastaba ku magacaw ama oday ku magacaw ama aqoonyahan ku magacaw ama dhalinyaro ku magacaw waxa doontaba ku magacaw dibadda joogta waa dad madal habaabiyay dhibaatada u badan ee ka taagan Somaliland iyo beelaha ay ka soo jeedaan iyaga
waxay ku leeyihiin door weyn taa mid aan dafiraayo maaha laakiin dee ka dabadda jooga isagu dabaduu jooga laakiin ka gudaha jooga ee mas-uulka ah ayaa loo baahnaa isagu inuu walaalkii iyo inadeerkii u tago oo soo qanciyo oo wuxuu tabanayana ila isagaa ugu jira dawladdii isagaa ugu jira wuxuu tabanayana dawladdii uu ku jiray uu uga dhammayn karo waxa laga tabanayana dee uu isagii soo qanciyo laakiin iyaduna taa waxaa ku jirta meesha waxaa soo maray 3 dawladood oo kala duwan ilaa dawladdii maxamed xaaji ibraahim cigaal la naxariistay dawladdii daahir riyaal hogaaminayay iyo tan imika la joogo marka ma la odhan kara in siyaasadihii kala duwanaa ama isa shabahayay ee ay ku dhaqmayeen xukuumaduhu in deegaankan buu hoodlay iyo siyaasiyiintiisu sidan u kala daadsanaantan iyo tan aad sheegtay leedahay kuwa hargeysa joogi laftoodaba ayaan arrintanba dhinaca dhow dhaqaajinayn in ma siyaasada markaa noocaas ayay ku salahaayeen oo tan ay tahay mid cusub oo hor leh oo laga yaabo in xukuumaddu haatan ay ku dhaqaaqday horta markaan usoo noqdo tii hore ina maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay ha u naxariisto iyo tii daahir riyaale kolley anigu ta aan ugu xogagaalsanaa waa tii daahir riyaale taa ina xaaji ibraahim cigaal xogagaal maan ahayn dee waxaan maqlo mooyaane laakiin tii ina daahir riyaale ka ahayd xogagaal ayaan ka ahaa weliba mararka qaarkood waxaan ka mid ahaa dadkii ku dhowaa inkastoo anigu aanan xil ka qabanin marka waxa aniga ii muuqato ii soo baxday daahir riyaale inaanu diyaar u ahayn at that time waqtigaa isagu uu xukunka hayay in beeshanu ku soo darsanto ummadda inteeda kale laakiin sidaad odhan kartaa taa wuxuu baa madaxweynihii ugu horreeyay Somaliland laascaan oo taga ee intuu ciidamo nabada si nabada ku tagay aan waliba ciidan istaba dhigin haddana xabad lagala hor yimid sidadka qaarkii ay u dhigaanba ay ka liftay in uu degdeg uga soo baxo marka isagu oo laascaan oo tagay oo nabadoon ah taas meel astaan oo doonayo taasu waxay ahayd markaa uu tagayay laascaanood horta xabad lagala hor yimi oo ka saaraysay may jirin laakiin isagaa qorshe uu lahaa oo uu islahaa doorashada xaggan waa lagaaga itaal roonaanaya oo uu rabay inuu meesha soo xidho ayaa horta ay ahayd balaankiisu because markii u horreysay intaanu tegin baa la yidhiba ha tegin wuu diiday markan dambena gaadhi ka yimi garowey oo dhowr xabadood riday ayuu baxay isaga oo ciidan magaaladoo dhan qabsan karayay wata marka taa annagu waxaanu u fasiranaynaa markaanu nahay reer laascaanood in ay ahayd arrin yani qorshaysan oo uu ah go-aankii uu qaatay markii dambena uu yidhi lagama footayn karo ayuunbay taasu ku beeskarasay kolley maxamed waa mid doodeeda loo dadka qaran laga bisay marka anigu kolley waa aragtidayda shakhsigaan cabiraya waatay maadaama aad sheegto tiri xogagaal baad u ahayd dawladdii tan ka horreysay xusbigii udub uu hogaaminayay daahir riyaale ka ahayd maxaa kaaga iftiima adiga farqiga u dhexeeya siyaasadda imika xusbigan talada haya kulmiye iyo hoggaankiisa oo dee looba tiriyaba inay ood xigtaanbo xagga marka la eego hoggaanka iyo bulshadiisa siyaasadeed ee firfircoon ay badi dead tabashada ma laga yaabo in aad isku fahamtaanba wala mooday inaan qoladan aad isu fahmayn laakiin markii ay yimaadeen xukunka ma dhicin كل محمد مد باجرتا مدحوينها سومالان أحمد محمد سيراني وحا مدحوينيه وقبضنا كعلي باق نبضين تيرابو وحو كعليني نبض مدحوينها هاتن ترادا هيا يحكم كيسي يحسب كيسو تدكي وقول نبض باقي تبضن بها وحوي waxaad ina gelinaysaa meel adag oo aniga qudheedu aanan mowqifkayga ka noqonayn waxa weeye
dee intii ka horreysay xukuumaddan imika for example dhinaca laascaanood ciidan baa tegey ciidina kuma dhimanin dagaalna kama dhicin waxaa ku jiray dhinacan qudheeda dad iyagu siyaasad gaara wata ayaa jiray laakiin dadkii siyaasadda gaarka ah watay markay helaan jaanis ay ka faa'iidaystaan waa ka faa'iidaysanayaan ninka xumaanta wadaa wuxuu ka faxlay hashu maqaarka halka daloolay ka warsataa ninka xumaanta wadaa meesha uu isleeyahay waxa kuugu jirta yani halkaasaad wax ka abuuri kartaa ayuu ka abuurayaa marka anigu waxaan qabaa malihi xaggan qudheeda qalad ma jiro laakiin waxa qaladkii sahlay qaladkii qaladka lagu saxay arrintan go-aankee nabadda iminka waxaad ka sheekaynayso dhan waa laga soo gudbay waxaa loo gudbay nabad weliba deegaankii aanu carabka ku dhufanayno aad adiguna si toosa uga soo jeedo ee aad ku xidhan tahayna waa buuhoodle sidee suurtagal u tahay in nabadda xagla toosiya ay la qaateen oo ahaa qolooyinkii hubaysnaa iyo qolooyin kale iyaguna ku hoos jira iyaguna le nabaddan waxba kama jiraan sidee la isugu dheeli tiri karaa sidee nabad looga dhalin karaa waxaad u arki kartaa xagla toosiya markii uu hargeysa ka tegey ee buuhood la aaday sidii loo soo dhaweeyey waad aragtay taas waxay ku tusaysaa in dadka reer buuhoodle ay nabadda soo dhaweynayaan diyaarna u yihiin midda labaad dee dadka halkan wada dega labada beelood ee halkan wada dega waana wada degi jireen ilaa iyo weligoodna way wada degayaan dad meel kala tegayana maaha oo qolana la rari maayo marka nabadda way ku khasban yihiin cid walibana waa u diyaar midda labaad iyadoo aanay hore u tegin waxaa iyaduna ka dambaysay in barasaabkii iyo meeyarkii buuhoodle ay tageen oo iyana si wacan loo soo dhaweeyey oo aanay hore u tegin taasoo waxay ku tusaysaa in reer buuhoodle dhinacoodii nabadda diyaar uga yahay okay waa tahay waxa aad farta ku fiiqday dhinacii siyaasiyiinta waxaad tiri siyaasiyiintii matalan dhinaca somaliland darajada doonaan lahaadana ku jiray kaalintoodii meesha way ka maqan tahay dhinaca kale siyaasiyiintii xayan ka soo jeeday mucaaradnimada ahaa ee hubaysnaanay waa sidoodii tii dhaqanka arrinta laba hadday loo kala qalo midna ay tahay xurguf deegaan ahaaneed oo dadkii isku deegaanka xurguf ka dhaxaysa loo daayo midna waa tii qaranka ee somaliland guud ee buuhoodle iyo somaliland ka tirsaniinteeda meeshan ma waxaanu leenahay siyaasad baa lagu xallin karaa mise habkii dhaqanka ee golaha guurtida iyo soo jireenkii ay somaliland wuxuu xallin jirtayba ayaa loo dhamayn karaa kulata wallaahi taa markaan ka hadlo horta labaduba way u baahan tahay waayo mid waliba door buu leeyahay mid waliba wuxuu leeyahay kaalin marka mid walba kaalintiisa in la siiyo ayay u baahan tahay waxa caado inoo ahayd waxaanu leenahay gola guurteed golaha guurtidu wixii dhibaatooyin ahee beelaha ka dhaca iyagaa u xil saarnaan jiray oo ay hawshooda ahayd laakiin kolley intii kulmiye xukunka qabtay waxaad moodaa golihii guurtidu inuu hawlgab noqday sababtu si kastaba ha ahaatee ma xisbiga kulmiyeed ku eedaynaysa arrinta mise golaha guurtida leedahay way xilkoogiiba ka baxay dee in xisbigu hawlgab ka dhigay iyo in dee guddoomiyaha guurtidu isagu sidan ula kacay ma kala saari karo weliba guddoomiyaha guurtigu waxa weeye nin ka soo jeeda beesha deegaanka dagaalku ka dhacaya uu ka dhacay imikana heshiiska laga wado waagii hore ee dagaalkii karshaale socdayna kama muuqan saaxadda waa abtigay anigoo abtigay ixtiraamaya kama muuqan iminkana soo dhaweyntii xagla toosiyey saaxadda kama muuqanayn taasu ama xukuumadda waxaa ka tirsanayo ama si kale ha ahaatee waxaa muuqata in aanu dee kolley laakiin gola guurti weeyaan isaga haddaynu iska isagu laba meeloodba arrintu way ku khusaysaa ka gola guurti ahaan deegaamada waxa ka dhaca
iyaga ikhtisaaskooda ay tahay u gaar tahay ka beel ahaaneedna isagu waa nin beeshiyo waa nin reer qori lugud ah dee inkastoo aan odhan karo booskiisii waxaa buuxiyey wasiirka madaxtooyada oo aan anigu kolley ku ammaanayo inuu isagu door weyn isu soo dhaweynta ka qaatay laakiin kolley gacmada jir wax ku gooyaan lama aha in kolleyna shakhsiyan carabka ku dhufano aynu ka hadalno anigu aragtideeda cabiray waana barnaamijka kugu soo marti qaaday inaad bal cabirka aragtideeda iyo dadka kale kula qabaanba deegaanka buuhodle ka soo jeeda siday wax u arkaan marka waxaad leedahay siyaasad baa lagu xalliyi karaa mar haddii guurtidii aad sidaa ku sharaxday in intii talada xisbiga ku qadiyadda labada beelood u dhaxaysa waxay u baahan tahay in guurti ahaan waayo dhaqan baynu leenahay hab soo jireen ahaan habkeeni soo jireenkaa wuxuu ahaa dee cuqaal baa jirta suldaamaa jira garaadaa jira hoggaan dhaqameedku doorkiisii inuu labada beelood arrinta taagan ku xallilo meesha weligeedba labadan beelood way isdili jireen hoggaan dhaqameedkaasun baana xallili jiray iminkase wixii way siyaasadaysan tahay laakiin maxamed miyaanay ahayn hoggaan dhaqameedka laftiisii aan ka dhex galo hoggaan dhaqameedka laftiisii ka soo jeeday gobolkan buuhoodle mid meel kale u fadkuday oo isagu aan kaba baxsanba deegaanka maamulka qaarkoodba muqdisho iyo meelo kale ay ka dhacsan yihiin oo qadiyadanba dhinacanba aanay culays la lahayn miyaanay ahayn sidaa de cabdilaahow haddaad ii soo noqotay aan u malaynayaa ta aan ku eedaynayo mas-uuliintan beesha ka soo jeeda hoggaan dhaqameedkan ay nin waliba hoggaan dhaqameedkiisu dee uu keeni kari lahaa midda kale ama xamar ha ka dhaco ama puntland ha ka dhaco ama meeshuu doono ha ka dhacee kolley taas waa dhaliil somalilan oo dhan u taalla maxaa hoggaan dhaqameedkii beesha oo dhan in looga waayo waa tahay laakiin mid baa jirta yaan ku dhamaystiro taas waa dhaliil somalilan oo u taalla oo weliba usii taalla mas-uuliyiinta ka soo jeeda beesha in yarso laakiin marka ay qadiyadi timaado ee meeshii dhibaato dhacdo hoggaan dhaqameedku beeshiisiiba u imanaya oo waa imanaya wuuna la xaalayaa hoggaan dhaqameedkii de markaa arrintaa dhacday mashaqadaa dhacday xalilaya dee wuu imanaya laakiin haddaan isla garanno in qaarkoodna ay meelo kale ay ku mashquul yihiin laakiin waxaa jira garaado iyo cuqaasha garaadka haddaynu ka nimaadno cuqaal fara badan oo nabadan la qaatay oo xagla toosii la socday oo iyaga laftooda deegaanka ka soo jeeda buuhoodle oo doonaya in mar uun ay dhammaato arrintan buuhoodle muddada dheer jiitantay marka kuwa laftooda maxaad u arki leedihiin maya kuwan haddeerto xagla toosiyaa keenaye kuwo inoo iman jiray maaha oo inoogu iman jiray oo waayo dee hadda xagla toosiyay soo raaceen oo keenay haddeerna sida uun maamulka u maintain u wado ee u qabto ee dee ula shaqeeyaan ayay ku xidhan tahay markaa dee way iman karaan way imanayaan hoggaan dhaqameedkaas waa imanayaan waa tahay mar haddaan dee odayna kugu sheego aniga oday ugu sheegay halkaad aqoonyahan igu sheegay ma aqoonyahanka anigu odaynimada la golay waxaa jira iyaduna deegaankan buuhoodle lafteeda waxaa jira khilaaf badan oo isla golahan dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanka laftiisa isaga laftiisa aanu jiha keliya u soconin taasi mana in la odhan kara saameyn bay ku yeelanaysaa in iyaga laftoodii meel loogu soo hagaago oo lagula xaajoodo oo siyaasigii kasoo jeeday deegaankaasi haddii uu hargeysa joogo imise qaybood buu la hadli karaa haddii iyaga laftii ay wejiye kala duwan leeyihin ama horta meesha la yidhaahdo buuhoodle si kastaba ha u kala farabateen beelo dhowraa dega isla reerka waxaana keenaya kala qaybsanaantan dee meeshii mar haddaan maamul ka jirin cid waxay noqotay wadda halaq mareen cid waliba waa soo gashay cid waliba waxay noqotay meelaan cidi lahayn oo xukumin laakiin hadda waxa weeye reer buuhoodle way bislaadeen marxaladdaa way ka gudbeen nabadgelyay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in
caafimaadkoodii ay dhakhtar helaan inay iskuul helaan in dee ay soo gaadhaan bini aadmiga kale ee ku xaydaaman marka uu hadda xagla toosiye ka shaqaynaya anigu sida aan u arko uu ka shaqaynaya waxa weeye sidii uu u qancin lahaa itijaahaadkan dadkan faraha badan ee kala jeeda ee mid waliba waxa aaminsan yahay sidii uu inta ugu badan bini aadmiga lama wada qancin karo soomaad garan laakiin inta u badan inuu qanciyo oo ta uu la raagayba waayo waxa la haddaad aragta baa la garaagta ama erey meesha ku jiraa laga saaraya ama ereyaan meesha ku jirin baa la soo gelinaya marka ta uu u raagayba waxa weeye sidaa aad tilmaantay meesha oo gacmo fara badani ku jiraan dee sidii uu gacmaha inta ugu badan u kari karo sidii uu daweyn lahaa ku muuqataa in magaalada buuhoodle ay noqoto magaalo kolay heerka laascaanood gaadho oo ay siyaasadeedu degto xiisadaha faraha badan ee saamka isla garanay inay ka bixi karaan oo ay noqoto meel saldhigta aad baan ugu rajo weynahay aad iyo aad baan ugu rajo weynahay because waxa weeye sababtoo ah buuhoodle waa degmo bay ahayd ilaa weligeed ka tirsan gobolka togdheer iyadaa laascaanood uga dhoweyd somaliland laascaanood iyadaa somaliland uga dhoweyd dadkana waa dad dee isku degaana isku dhaqana isku hadda siyaasadan unbaa dee waxaan la soo gashay marka waxa aan rajaynayaa haddii dhinaca xukuumadda somalilandna mas-uuliinta arrinta gacanta ku haysaa ay daacadnimo la yimaadaan xaggana daacadi ka timaado inay weliba iyadu laascaanood ka hormarto inaad ka mid tahay ururka xaqsoor oo ku-xigeenkiisuna uu kasoo jeedo isla deegaamada guudeed kasoo jeeda matalan laascaanood oo kale siyaasaddan imika xusbiyeysan xusbiyada kala duwan ee somaliland ay mar labaad dib usoo noolaysay xusbiyadii dib loo furay maamulmaysa in la jaan qaadi karaan deegaamadaad kasoo jeedaan oo ay dadku halkii qadiyadahan kale ee aynu ogsoonahay meesha ka oogan in xusbiyadan ay dadku ku mashquulaan taasina ay nabad keentaba de horta kolley wixii cusub caalamkaa jecel baa layidhi haa oo de waxaa weeye markaad eegto sida iminka doraato mise tii ka horeysay bay ahayd cali sandulle loogu soo dhaweeyey laascaanood dee awal looguma soo dhaweyn jirin nin ka yimaada hargeysa markaa taaquleedu waxay kuu markhaati furaysaa in isbedel dhacay waayo waxaa lagaga hor yimi yogoori iyo ari caddeeyaa lagaga hor yimi nabaddana ayuun baana wax walba nabadgelyadu markay timaado wixii kaleba way iska xalilmayaan oo nin waliba meesha dee dantiisu ku jirto wuu og yahay because laascaanood ama buuhoodle xamar hargeysa uga dhow xamar horena kelmaddaa waanu isticmaalay laakiin waxa ay ku xiran tahay waxaan waa wakti markaad dib ugu noqoto dee 90kii ama dee halkii hargeysa maraysay waad waxaan u malaynayaa waad la socotay iyo mowqifyadii jiray markaan waxaan leeyahay war halkii aad xilligaa marayseen ayaanu hadda maraynaa hanaloo dulqaato waa tahay mahadsanid maxamed aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan aad ka soo qayb qaadato madasha qurbajooga aad baan idinku mahadnaqayaa hawshana halkaa ka wada wajiye kala jaadana soo casuuma aad baad mahadsan tahay waan mar walba soo dhaweynaa barnaamijka madasha qurbajooga waa tahay barnaamijkii madasha qurbajooga iyo toddobaadkan oo uu marti ku ahaa maxamed cawil cali oo ka tirsan golaha dhexe ururka xaqsoor isla markaasina ku sugan dalkan Britain kana soo jeeda deegaanka buuhoodle aadna ugu dhow nolola arrimaha siyaasadeed ee deegaankaasi guud ahaanba Somaliland intaas ayuu ku egyahay waa farsamadii
jamaal iyo anigoo ah cabdillaahi maxamed cali oo barnaamijkan madasha qurbajoog idiin soo gudbiya iyo dhammaanba bahda telefishin qaranka ee london waxaan leenahay inta dib u kulmi doono sidaas iyo nabadda iyo naxariista iyo barnaamijka korkiina ha ahaato